xildhibaan Cismaan Xasan Faarax Cismaan waxa uu ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay inuu sharaxan yahay jagada gudoomiyenimo ama maayarka caasimadda Hargeysa xildhibaanka oo ka hadlaya arintaasi waxa hadaladiisii kamid ahaa golaha deegaanka ayaan u taaganahay ayaan ka tirsanahay waxaan musharax u taagan inuu u tartamo maayarka caasimadda waxaan lahay nin asle 99% nin ku guuleysanayna nahay because way aragnimada aan leeyahay aqoonta aan u leeyahay muxuu ahaa muddo 30 sano hore oo sheegay ummadana ugu ballan qaaday waxaan idin cadeynaya oo run ah golaha deegaan baa jira la soo doortay golahaas ugu dambeynta dadka deefad baa la taagan oo kala saara taas waxaan ahay musharax waan ahay waan u taaganahay taan oo idin cadeynaya sidoo kale siyaasi Cismaan Hindi oo ka hadlay madashaasi ayaa isna tilmaamay golaha waxa loo doortay wax kale maaha xildhibaanadii ugu weynay golaha ila fadhiya waa ka soo fadhiya saaxiibkay aad iyo aad baan u hambalyeynaya ragga maanta golaha Hargeysa ay soo doortay warag dhalinyaro ah wax garanaya aqoon leh aan isleeyahay maanta waxay hor joogsan doonaan dhul boobkii hore Hargeysana ku faanto ragga ay soo dooratay laakiin hal laga daayay khalkhalka hal laga daayay dhexdooda in laga dhex shaqaysto hal laga daayay iyaga in la iska warkeeno waxba ma taraysaan isku daayay iyaga nakay doortaan meerkay doortaan waan ku qasbanahay naga reer Hargeysa annaka hambalyeynayna reerku doonaya ka soo jeedo waa isku kaayooda mid